kulanti wacan daawadayaal halkan waa janalka Halgan Media kusoo dhawaada daawadayaal warbixin gaar ah oo aan kaga hadlayno ciidamada Kenya oo toddobaadkan dil iyo dhaawacba ka geystay deegaano ka tirsan gobolka Gedo. Warbixintan waxaynu ku eegi doonaa xasuuqa Kenya ee ka wada Gedo, dowladda federaalka doorka kaga aadan arintan iyo sidoo kale shacabka Gedo oo markan ka dhirinaya dhibaatooyinka dowladda Kenya ee ku hayso. Warbixintan ayaynu ku eegi doonaa ciidamo ka tirsan kuwa Kenya ee qaybta ka howlgalka AMISOM kuna sugan gobolka Gedo ayaa dil iyo dhaawac dad shacab ah u geystay gaar ahaan deegaanka la yiraahdo Yeedow oo hoos yimaada degmada Ceelwaaq ee gobolkaasi. ciidamada Kenya ayaa lagu soo waramayaa in howlgal ay ka sameeyeen gudaha deegaankaasi isla markaasna ay ku beegsadeen dad shacab inta la xaqiijiyay ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay weerarkaasi iyadoo ay ku dhaawacmeen laba kale oo dhamaanba ahaa dhalinyaro kamid ah dadka deegaanka. sidoo kale wararka waxa ay intaasi ku darayaan in meydka marxuumka ay dileen ciidamada Kenya iyo dhaawaca labada qof ee kale in ay horey u sii qaateen sida ay noo sheegeen dadka deegaanka. dadka aan la hadalna ayaa sidoo kale tilmaamay inaysan jirin wax tuhun ah oo laga qabay dhalinyarada loo geeyay dilka iyo dhaawaca balse gardarro cad ciidanka Kenya ay ku soo weerartay. inta badan ciidamada Kenya ee qaybta ka howlgalka AMISOM ayaa duqeymo oo qasaare ka soo gaaray dadka rayidka ah ka fuliya gobolada Jubbooyinka iyo Gedo iyagoo sidoo kalena dhibaato gaarsiiya dadka shacabka ah. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ya lanahay wa arkaysaan meydkan meeshii yeelo nidaamka ogsiin Kenya 2011 bishii 10 Abriil ay wadanka Soomaaliya soo gashay xuduudda Soomaaliya ay ka soo gashay ninkan waxa weeye waa ninkii konton iyo sideedaad oo hadda meydka aan tirnayna intaas uu ku yahay intay dileen waana garanaysaan waxa weeye waa ciidamada nabad ilaalinta AMISOM isku sheega ay xuduud ay degan yihiin kuwana laayeen waa ciidamada Kenya oo militariga weeye gumaad aan loo kala harin oo marna ahayn oo laba ahayn oo joogto ay inuu hayaan. waxaan leenahay marka waxaan u sheegaynaa beesha caalamka dowladda Soomaaliya iyo dadka muslimiinta ah waxaan meesha la arkaysaa meydkan soo nooc uu yahay kuwa kalena meyd ba hadda aan maar ku tirina ayagana ma hayno. waxaan leenahay marka dowladda Kenya way nala degan tahay oo waxay tahay AMISOM ay ka mid tahay oo xuduud ay degan tahay oo gudaha Soomaaliya joogta inay tiraahdo marka inay AMISOM oo shacabka inay tiraahdo shacabkana ay gumaado wax la qaadan kara ma waxaa ka mid ah diyaaradaha oo duqeyta ka mid ah oo maarta kor laga soo tuurayo waxaa ka mid ah mataqaanaa ateenooyinkii maarta shaqaalihii hormuud ku shaqeynayay oo lagu gumaado lagu laayay raggii mataqaanaa geeljirta oo markay dib u shitaan geeljirta la laaynayo ka mid ah safartii ka mid ah oo maarta dadkii soo safray baadiyaha oo maarta soo safray ka mid ah gumaad aan loo kala harin weeyo waa arkaysaan aniga hadii shacab baan nahay oo meel aan kala xaajoonay meel aan u marna male. waxaan leenahay marka dadku waa raaciyadii mas'uuliyad weey anaga waxaan nahay raaciyad baan shacab baan nahay wixii marka hawlahan waxaan lahayn military weey anaga military min shacab baan nahay marka waxaan leenahay marka anaga shacab baan nahay shacab awoodiisa waa garanaysaan anaga marka waxaan leenahay arrinkaas arrin naqabato maahan waa arrin dhibaato ah waa arrin falxu weey islaamnimada kuma fiicna Soomaalida kuma fiicna darisamada kuma fiicna markooda waxaan leenahay dowladda Kenya horta waxaan aynu dhibkan ay wado oo anaga shacabka aynu waasha naga dayso waa u baaqaynaa anaga shacabka nahay waxaan leenahay waa markii qofkii konton sideedaad disho waaya oo nooc walba leh oo haween leh rag leh culummo leh bulshada nooceeda noocaas ay dirin ma lahan. waxaan leenahay magacaygu waxaa la yiraahdaa Bishaar Buu Farax waxaan ka warbixinayaa dhibka ka dhacay tuulada Yeedow sidii hadda deegaanka oo dhan waa laga ogyahay gobolka waa laga ogyahay caalam muslim waa laga ogyahay ciidamo ka imaaday xuduudka oo dhanka Kenya ya tuulada Yeedow soo weeraray una soo gudbay dhanka Soomaaliya Cabdullaahi Warsamo Abaylana way ku dileen Warsamo Abaylo oo wiilka dhalay ee laba nin oo dhalinyaro oo kale oo iska xoolo jirna waa la tageen dad rayid oo meesha deganay oo la ogyahay oo islaamka oo dhan uu ogyahay oo dariska uu ogyahay oo meesha deganay ilaa dhowr sano oo ku dhashay ahayn ilmaha lagu dilay meesha ama la afduubay ciidamadaas waxay noogu imaadeen Kenya way la tageen meydkana horaan uga hadalnay meesha aan ka soo qaadnay waa gudaha Kenya 10 kiiloomitir marka xasuuqaas ay noo geysteen wax hadda kaliya ma aha dhowr jeer xasuuqaas nagu dhacay waan ka warbixinay ilaa 50 ruux gobolkan hore waa ugu dileen marka dibkaas aan ugu dhacay waan ka cawanaynaa meeshina hadda saacadan wax ku nool male waa laga guuray waxa loo soo guuray dhankan hadda gudaha Soomaaliya ay dadku u soo qaxeen. bismillaah
magacaygu waa Barra Qorno Ducaale waxaan ahay dadkii la xasuuqay mid ka mid ah waalidkiis annagoo joogna subaxay waaga markuu bariyaa niman Kenyaan oo 3 baabuur watay nagu soo galeen xanduud ay u soo tilaabeen meesha Cabdullaahi Warsame ay ku dileen Cabdullaahi Warsame iyo Warsame Barra Qorno nani dhalay yar kale way la tageen hadda meel ay ku sugan yihiin inay nool yihiin iyo inay dhinteen ma naqaano waxay sameeyeen kii Cabdullaahiga ay dileen qaadeen meel xanduudooda dhaxdeeda ay ku duugeen god inay u faagfaageen asagoo meydka ay lugaha soo jeedaan aragnay waa soo qaadanay degmada ceel waan ku xabaalanay intaan waa gurmanay waa doonay raggi kala jaan iyo cirib meelay dhigeen maahayn naxdin iyo calool xumo iyo murugo ilaahay uu naga dulqaadanahay ilmahaas wiilashaas waxay ahaayeen ilmo iska xoolo jir say u badiyeen xaasile oo ilmahooda la tabaaragadoomo meeshii ku dhasheenna joogo wax lagu dilay wax lagu maagay ma naqaano sanadyadan dagaalkii adoonta nagu haysiisa waa xilliga nagu hay mid ka mid unaan helay ilaahay waxaa nala qabtee murugadaas u baana haysa waanan horay noo soo dili jireen hadda ka dambana ilaahay naga qabta moogi waa sugaynaa inay un la dilaan dadku waa barakacay waa qaxay garsaal iyo ceel waaqi inta u dhaxaysay dadku u kala go'an yihiin waxay ku sugan yihiin xaalad khatar ah ilaahay baa mahad leh annaga hadda waa noolna saacadda hadda aan taagannahay suuq waa ka dhacay suuq oo ma arkaan ahaa nagu dhacay oo ka dhacay tuulada iyadoo ani ila hadlaya waxaa la yiraahdaa dhaqana abayla cilmi wiil aan aniga dhalay oo sanjir ahaa 2017 bishii 9 taariikh 9 ee gaalada ku dishay Buusaar hadda oo taariikhda 22 bishii 9 2020 Cabdullaahi Warsame abayla oo adeer u ahaa oo Warsame uu dhalayna waa duugnay ma hayno aabuhiis Cabdullaahi Warsame ma hay Cabdullaahi saaki gacanta ku hayan qabrigiisa hor joogaa Warsame qabrigiisa meel aadiyeen iimaan u toonan la'nahay ilaa rag kalaba caalamkii adduunka islaamka waxaan u sheegaynaa xasuuqan ugu dhacay qaas aan oo waliba nolol dan leeyahay beesha gobolka Gedo degta nolol dan leeyahay oo caadi ahayn baa jira xasuuqaas asaga ah waa ujeedo waa mid nolol talagalay waa mid in lagu dhameeyo loogu talagalay waa mid aan ka soo noqod lahayn haddana waa la wada xali aankay waxa la sheegay wili cadeyn ma hayna afarna in lala tagay xasuuqaas marka waxa wada Kenya wada Uhuru Kenyatta wada 200 oo iyo dhowrka boqol oo cadcad ugu dhambaatay rabaa inuu ka raadiyo sida dhaxdiis iyo gobolka Gedo waaba dhowrway boqol waa maraya hadda adduunku waxa uu sheegaynaa marka caalamka dadka islaamka u sheegaynaa xasuuqaas Falastiin aan noqon waan ugu la falaadayaa haddii wax noola qaban karo in nagala qabto maalin uun iska xamaaranaya oo danteed iska wata oo ka imaatay weli calaa koonfurteeda yaan gaalada Buusaar kasoo guurtay calaa soo degtay anoo socdo meesha nabad baan kaga tegay ma ogeyn baan soo laabtay meesha kuma ogeyn xabadan baa lagu bilaabay hadda ciidanka markaa gaalada u dhufay xabadayda marka xabada ku dhacday meeshii 6 saac barbaa xabada ku dhacday taariikhdan waxay ahayd taariikh 12 bishii 3 2019 ilaa hadda lagu tamaan taariikhda ay kowda October 2020 inta ma dhib ugu yaala marka ragga ugu dhuftayna marka oo imaaday waan furtay oo naga tagay kadib waxaan soo laabtay male waxa la hadlayna ma jiraan marka calaw baa la keenay isbitaal oo kale la keenay farmashiyaha isbitaal adweyn aan ahayn marka xamar baa isbitaal waxaan ku jiray bil iyo 20 beri aan ku jiray isbitaalka calaw kadib taageer laga dalo diyaar laga saaray xamar baa ligay isbitaal digfeer xamar baan galay muddo bil baan ku jiray kadib baa laga soo bixay marka isbitaalka ligay madaxa xalisa iskaan baa la saaray madaxa maskaxda inay waxba gaar laakiin lafada maqiin baa laga sheegay oo laga soo bixay hadana meel hore sardaba waa la madaxa laga qaal lafa laga soo qofay marka alxamdulillah lugtay gacantii waa dhacay hadda lugtay waa kacday gacantina dilaa kuma qabsan kar xitaa isjeeda kuma isjeedan kar gacantana waa tasaan sidaan waan soo qaaday intaan dhigi waan qadarkeedan ku celin ma dhaaways xamaalasho markaa maanta ay ugu dambeysay ilaa hadda 18 bilood laga soo bilaabo taariikh 12 bishii March ilaa hadda
oo tay taariikhda maanta 1 October 2020 wax qof muslim ugu saaciday maga hada wax ku gacmiga ku qabsan sidaan ma wala fadhiya أنا marka ayar iskuul baan waan yaraa waxayna ahayd taariikh 14 bishii 3 2012 marka ilaa hadda lagu joogo marka waxa weeye waa ninka ugu weyn nimanka aniga idili baa asagana dili hore dhibkaan diigiisa asagana dili askay ma dil ma jirto anigan marka dhibka u dhahay ayna sidoo kale wax iska imaada ma jiraan marka xaaladda noocaas walaalaha muslimiinta ninka ilaahay dadka hor baa leeyahay waxaan rabaa in la saaciideeyo ilaahay dartiisa wali u sadaqaysto ilaa waqf fadhiyo baan